kulanti waxaan wanaagsan akhyaarta hawada inaga daawanaysa idilkiinba ku soo dhawaada qaybtii koowaad barnaamij xasaasi ah oo aan ku eegi doono shakhsiyadda duqa cusub ee Muqdisho Engineer Yarisow 1993 ayaa wuxuu sheegtay in qabiil ahaan uu ka soo jeedo Mudulood Abgaal Wacbuudan Daawud Yusuf Daawud Robdaay waxaana xilligaasi gadaal ka riixayay wadamo ka tirsan reer galbeedka oo dagaal kula jiray General Maxamed Faarax Aydiid Allah u naxariistay wuxuuna durbadiiba ka bilaabay telefishinada caalamiga ah propaganda ka dhanaa General Aydiid si uu isku diro qabiiladii walaalaha ahaa ee ku dirirayay Muqdisho habargidir iyo Abgaal wuxuuna telefishinka CNN muddo dhowr mar ah uu ka sheegay Allah u naxariistay halyeeygii Soomaaliyeed General Maxamed Faarax Aydiid inuu ahaa shakhsi argagixis ah isla markaana caruurta yaryar u geystay dhibaatooyin badan propagandistana ah sida xilligaasi warbaahinta caalamiga uu ka sheegi jiray Engineer Yarisow. Aydiid started propaganda. Somalis are very attached to sovereignty, nationalistic, patriotism. So these are invaders immediately got more support for the young people, unemployed, who had nothing to do but to fight. Abdirahmaan Umar Usmaan Yarisow wuxuu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii dalka hase yeeshee waxaan idin ifinayaa shakhsiyadda dhabta ah ee Yarisow xil walbo loo dhiiba waa shakhsi ku qanca caamilna ah asoo ah wasiirka lacagta ayaa laga qaaday xilkii wasiirnimo dabadeedna waxaa laga dhigay afayeenka xukuumadda uu sa ku qancay Yarisow asoo soo qabtay waqtiyo kala duwan xilka wasaaradda warfaafinta ayaa xilligii madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu noqday shakhsi ka tirsan waaxda warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya wuxuuna waqtigaasi Yarisow uu hoostagi jiray wiil dhalinyaro ah oo haystay waaxda warfaafinta ee madaxtooyada oo lagu magacaabo Shadoor Xaaji Shadoor Abdirahmaan Yarisow darajada injineernimo waa mid falsa ah uu iska qaatay isla markaana darajo ahaan asiga ayaa siiyay darajadaasi aqoon ahaanna darajadiisa ma gaarsiisano injineernimo Abdirahmaan Umar Usmaan Yarisow waxa hadda xilka duqa Muqdisho u dhiibay ama xafiiska geeyay shakhsiyaad ka agdhow xafiiska ra'iisul wasaare Khayre waxaana durbadiiba uu bilaabay fulinta awaamirta Khayre haddaba xilalka uu magacaabay oo aan idin soo gudbin doono qaabka uu magacaabay iyo waliba jufada uu ka soo jeeda Xasan Cali Khayre oo mas'uuliyadii gobolka Banaadir gacanta uu galiyay ayaad goor dhow ila daawan doontaan laakiin Abdirahmaan Yarisow waa shakhsi aan xishoon isla markaana mar walba fiirsada xilka uu hayo kagana dambeeya cidda xilka u dhiibtay waana mid hadda Xasan Cali Khayre iyo xildhibaano ku heeb ah ay ugu dhigeen duqa Muqdisho si Khayre iyo waliba jufada hoose habar ceene uu ka soo jeedo ay u daldashaan khayraadka iyo dhaqaalaha gobolka Banaadir wasiirka warfaafinta xilligu ahaa Yarisow ayadoo laga xishoonayo ka hadalka qalbi dhagax iyo u dhiibistiisa dawladda cadawga Soomaaliya ku ah ee Itoobiya ayaa meel fagaara ah Yarisow wuxuu la soo istaagay jabhadda ONLF inay tahay argagixiso kooxaha hubeysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda ONLF inay qatar ku yihiin amniga labada dal meelna lagu soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah Abdirahmaan Umar Usmaan Yarisow ayaa hadda magacaabay xilal dhowr ah waxaana xilalkaasi inta badan uu u dhiibay shakhsiyaad isku jufo ay yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waana xilalkii ugu muhiimsanaa ee gobolka Banaadir waxaana intaasi sii dheer wuxuu eeriyay ku dhawaad 100 shaqaalo oo jufo ahaan jufada hadda kursiga uu ku matalayay Abgaal ee uu sheegtay 1993 qabiil ahaan ka soo jeeda waxaana shakhsiyaadkaasi ama shaqaalahaasi uu eeriyay naceeb uu qabo duqii hore ee Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo xafiiska uu ka eeriyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana shaqaalahaasi uu ku bedelay dad kale oo inta badan aan asal ahaan ka soo jeedin gobolka Banaadir waana ujeedka loo keenay Yarisow waxaana kamid ah xilalkii uu magacaabay Xamdi Cali Nuur wuxuu u magacaabay qasnajiga guud ee gobolka Banaadir waxaana adeer rumaad u ah Xasan Cali Khayre sidoo kale gabar kale oo lagu magacaabay ayaan kana soo jeeda qabiilka ra'iisul wasaare Khayre ayaa wuxuu u magacaabay xil muhiim ah oo gobolka Banaadir gaar ahaan suuqgeynta gobolka
waxaana waaxdii canshuuraha uu ka qaaday Muxudiin Saawey oo ka soo jeeda qabiilka Abgaal harti Abgaal uu u magacaabay shakhsi kale oo isku qabiil ay yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Cabdiraxmaan Yariisow ayaa waxaa lagu eedeeyaa in abuse uu ku sameeyo gabdhaha Soomaaliyeed asoona qaarkood u adeegsada xilka uu hayo iyo weliba dhaqaalaha uu ku helo magaca dawladda. waxaana hadda la sheegay in abuse uu ku sameynayo gabdho gudoomiyaalka ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo Yariisow uu ku wargeliyay haduusan gogoldhaaf uusan la sameynin inaysan sii hayninin xilka degmooyinka gobolka Banaadir ay ka hayaan. waana musiibo gobolka Banaadir loo magacaabay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow wuxuuna dib u dhac uu ku yahay iftiinkii gobolka Banaadir uu galiyay Taabid Cabdi oo xilka laga qaaday. waxaa dhibkii istay wasiirka hore ee warfaafinta Cabdiraxmaan Yariisow waxaan u leeyahay uur waxaan darawaa gabadhii labaad oo rumeeyay waxaan uga dacwoonayaa Axmed Daacish iyo Muuse Suudi ayaa turkooda ah haddaan dowladda u dacwoodana nin wasiir ee wax iiga qabanayana ma laha ciddaydu way soo buriyeen habeenka geeda harsada ilaaha ku daayay